Assalaamu calaykum. Maanta sheekadeena waxay ku saabsan tahay wiil lagu magacaabo Axmed. Axmed wuxuu ku nool yahay tuulo aad u yar, waxa uuna ka shaqeeyaa beer-fale, waxa uuna beerta u falaa nin taajir ah oo tuulada kula nool. Subaxdii ilaa habeenkii waxa uu ka shaqeeyaa beer-falidda, kamana dhaqaaqo. Laakiin markuu u yimaado ninka taajirka u weydiisto wax xaq u lahay, taajirku wuxuu dhahaa, lacag kuuma hayo, waxna ku sii maayo, ee iga kortag, shaqada ii qabatana kumaanan qancin. Mar walba uu weydiisto mushaarkiisa, sidaas ayuu ugu jawaabaa. Shaqadii uu maanta dhan u hayay ayaa noqotay hal bacaad lagu lisay, oo isaga oo keliya ayaa ku daalay oo waxba muusan ka faa'iidin. Wuxuuna aad uga walwalsanaa waxa ay caawa ku cashayn lahaayeen isaga iyo xaaskiisa, wuxuuna iskaga laabtay gurigiisa. Wuxuuna xaaskiisa ku yidhi waxba nooma wado. Waxa ay ku tiri sidee ku dhici kartaa, saako dhan shaqo ayaa ku maqneed, waxaas wax suurtagal ah ma aha. Wuxuu yidhi xooggayga dhan ayuu iga shubtay, waxna ima soo siinin. Subaxdii markii la gaaray ayuu soo kacay, waxa uuna aaday ninkii taajirka ahaa oo joogay beertii, isagoo niyadda iska leh wax uun waad ka soo heli doontaa, xitaa waxa aad hadda cuntaan ama aad wax afka ku taagtaan. Markii u yimid ayuu yidhi, walaal waxa cunan noo sheeg, habeen hore ayaa cunan noogu dambeysay. Waxa uuna yidhi sidee ayaan idiin saynayaa cunto adigoon ii shaqaynin? Marka hore shaqadaada qabso, kadib ayaan ku siinayaa. Haddii aad warka badisana iguma liid ogow, waxa aad hore u shaqaysatay iyo waxaad shaqaysan doonto midtoona ku sii maayo. Waxa uu yidhi, war aad baan u gaajoonnahaye, xitaa jab rootiya na sii. Wuxuu ku yidhi, wax iga gala ma jirto, gaajada aad sheeganayso adiga ayay kuu taallaa, adiga ayayna ku haysaa. Axmed ayaa iska soo baxay markuu warkaas maqlay, isagoo aad iyo aad u murugaysan. Waxa uuna niyadda iska yidhi, aad iyo aad baan uga xumahay in ay tan igu dhacdo. Runtii ma aqaano waxa aan sameeyo. Habeen hore ayaa noogu dambeysay aniga xaaskayga waxaan afka saarno. Allah ayaana ka baryayaa in uu imtixaankani si fudud noo mootiyo. Isla markii waxaa soo muuqday laba gabdhood oo boqorro ah oo ka imaaday meelo ka baxsan dhulka. Waxa ayna ku sheekaysanayeen aaway ninkiina loo soo diray oo hadiyadda nagula soo dhiibay. Dhulkan ayuu joogaa, waxa uuna ka ag dhow yahay deegaanka aan hadda kor marayno. Runtii ninkaas aad buu u daalan yahay, waxna ma haaye, inakeen aan ka gaarnay. Axmed oo aad u walwalsan ayaa waxaa ka soo kordegay labadii boqorrood. Waxa ayna ku yiraahdeen, waxaan ka soconnaa boqorkaasoo lagu magacaabo Naaduud. Waxa uu ka taliyaa meel ka baxsan dhulka. Waxa uu go'aansaday inuu adiga hadiyad kuu soo dhiibo, waxa uuna noo soo dhiibay annaga. Hadiyadaadiina waa tanaa, oo waxa aad hadda haysataa dambiishaas dahabka uu kuu soo dhiibay boqor Naaduud. Hadda kadibna adiga ayaa iska leh dahabkaas oo dhan. Axmed ayaa yidhi, wallaahi istaaga ayaan ka dhici rabaa. Waxa ayna ku dhaheen, waxaasi oo keliya kuuma wadno, waxaan kuu wadnaa hadiyado aad u badan. Markan waxaa lagaa rabaa inaad soo raacdid oo wax aan ku geyn doonaa meesha uu joogo boqorka. Raalli ma ku tahay arrintaas oo in aad boqorka soo booqatid ma naga ogolaan kartaa? Axmed oo farxad la boodboodaya ayaa yidhi, haa waan ogolahay. Waxayna ku dhaheen, ha ka welwelin, boqorkaasi waa boqor wacan, aad buuna kuu soo dhoweyn doonaa. Wayna qaadeen oo waxay dhex marsiiyeen hawada sare. Waxa ay geeyeen meeshii boqorka oo degganayd oo ka korreysay ama ka baxsaneyd dhulka. Boqorkii oo dhoolla caddeynaya ayaa ku dhahay, war soo dhowaaw, waxaad hadda joogtaa boqortooyada adduunka ugu weyn. Awalna waxa aad ahayd nin dhibbanaa oo faqiir ah oo u gumaysto nin xun oo taajir ah. Marka niyow waxaan kuu rajaynayaa nasiib wacan, waxaana tahay qof aad iyo aad u nasiib badan. Subaxdii markii la gaaray ayuu Axmed wuxuu ku bilaabay beerihii boqorka in uu waraabiyo. Barqadii markii la gaarana dalxiis gaaban ayay isku raaceen isaga iyo boqorka. Saacado badan oo damaashaada kadib waxaa soo dhammaaday waqtigii loo qabtay Axmed. Dhammaan qoyska ayaa sagootiyey Axmed,
iyagoona u sheegay inay aad ugu farxeen imaanshihiisa. Waxa ayna yidhaahdeen, waxaan kuugu talagalnay hadiyad yar oo intaan ah. Waxa aad u geysan kartaa xaaskaaga oo hadda aad ku laaban kartaa. Mar walbana waan kula socon doonaa xaaladaada meesha ay marayso. Waxaan kuu rajaynayaa nasiib wacan. Mar walba xaalkaada waa la socon doonaa oo indhaha ayaan kugu haynaa. Axmed oo markaan dhinaciisa taajir noqda ayaa yidhi, haa boqorow, wax walba diyaar ayaan u ahay. Aad iyo aad ayaana u mahadsan tahay. Amaalkaagana ma soo koobi karo. Wuxuuna hore u soo waraabiyey geedihii boqorka. Axmed ayaa soo dhaqaaqay isagoo wata jawaankii dahabka ahaa uu boqorka soo siiyey. Waxa uuna jawaankii geystay geeris uu lahaay nin saaxiibkiis ah. Waxa uuna soo aaday dhinaca gurigiisa. Waxa uuna arkay xaaskiisa oo aad u daalan kana muuqato gaajo fara badan. Gabadhii ayaa damacday in ay dambiisha qaato si ay biyo ugu soo buuxiso, balse Axmed ayaana kula dhegay. Waxa uuna u sheegay in aysan qaadi karin, awooddaasna aysan lahayn, maadaama isku darsatay inay xaamilo tahay, sidoo kalena ay aad u gaajaysan tahay. Aniga ayaana ceelka tegi doona, biyahana noo soo dhaamin doona. Gabadhii ayaa tiri, iska keen, waa daalan tahay, shalay oo dhan ayaad maqneed. Aniga ayaa shaqadaas liigu talagalay, waana shaqadeeda ee isii aan qabsadee. Adiguna aad baad u daalan tahay, kamana kacdid shaqadan aadka u tiro badane oo orod oo iska jiifo. Axmed ayaa markiisa yidhi, macquul ma ahan inaa adiga kugu aamino ceelkii aad u fogaay. Waad og tahay inta uu noo jiro. Suurtagalna ma ahan inaad ceelkaasi aadka u dheeraay biyo ka keento adigoo gaajaysan, uurna leh. Axmed ayaa durbadiiba soo baxay. Waxauna soo aaday dhinacii ceelka oo aad u fogaay. Markuu yimaaday ceelkii ayuu arkay inuu ceelku duugan yahay oo waxaa tuugay ninkii taajirka ahaa oo ay isdagaalsanaayeen. Waxa uuna yidhi, ninyahow taajirka, anigoo saas u faqiirsan, intaasoo kiiloomitir u soo jaray inaa ceelkaani soo aado, ayaad sidaan ii gashay. Adiguna qolka aad jiifta ayay biyo kuwaga buuxaan oo uma baahnid in aad xitaa bannaanka u soo raadsato. Hadda maxaa sameeyaa? Xaaskayga waxay iga rabtaa in aan biyo u geeyo, umana tagi karo aniga oon waxba u wadin, maadaama aan ahay qof wax u soo dirsatay. Taasna ceeb weyn ugu tahay in aan ku laabto aniga oonan faraha wax ku haynin, dambiil cidlahna u wadaa. Axmed ayaa gacmaha kor u taagay. Waxa uuna baryay rabbigiisa. In yar kadib waxa uu maqlay dhawaaq ka soo galaya dhegtiisa midig. Waa uuna u dhaqaaqay. Markuu tagay meeshii dhawaaqa ayaa waxa uu arkay qashin iyo waxyaabo lasoo tuuray oo magaalada ka yimaaday in ay ka buuxaan. Isaga oo la raacaya qashinka, indhaha ayaa waxay indhihiisa qabteen dhalo ay ka soo baxaydo hadal aad u dheer. Waxa uuna arkay dhaladaasi inay ku jirto gabadhii boqoradda ahayd ee maalintii caawinaysay, siisana dahabka uu maanta rabo in uu ku badbaadiyo naftiisa. Dhaladii ayuu soo qaaday. Waxa uuna yidhi, allah, soo adigii ma ahan oo boqornaaduu gabadhiisii soo ma tihid? Maxaa dhaladan kugu soo xiray oo halkaani ku soo geliyey? Waxay tiri, qisada halkaan isoo gelisay aniga ayaa kuu sheegi doonee. Marka hore iga saar dhaladan si aan u badbaadiyo nafteyda. Bliis, waan ku baryayaa ee iga saar dhaladan. Wuxuu yidhi, looma baahno in aad iga barisid in aan kaa saaro dhalada. Boqoradda ayaa tiri, aad baad u mahadsan tahay Axmed, waan ogaay inaa adigu tahay qof aad u wanaagsan. Axmed ayaa yidhi, waayahay, sideen kaaga saara? Boqoraddii ayaa tiri, furka jaallaha oo karkaaga muuqda ka bixi, kadib aniga ayaa si toosa uga soo bixi doonee. Axmed ayaa yidhi, okay, hadda ayaan sameynayaa. Waxa uuna bilaabay in uu ka bixiyo furka jaallaha. Tartiib ayuu uga siibay, waxaana ka soo baxay boqoraddii. Boqoraddii ayaa ammaan kala dul dhacday wiilkii Axmed ahaay, waxayna u sheegtay inuu aad u wanaagsan yahay, uuna yahay wiil aad u fiican, uuna badbaadiyey nafteeda. Haddii uusan halkaani imaan lahayn, in ay dhalada ka soo bixi lahayn, aysan heli lahayn qof ka badbaadiya.
ee inta cimrigeeda ka dhiman ee halkaani ku jiri lahayd. Rabbigayga ayaan u mahadcelinayaa oo ii suurto geliyey inaan halkaani ka badbaado maanta. Axmed ayaa boqoraddii weydiiyey, sidee halkaani ku soo gashay, yaana ku soo geliyey? Waxay tidhi, midaas xaaskaaga ayaa kaaga sheekayn karta. Axmed ayaa yaabay, waxa uuna yidhi, sidee ku ogaan kartaa xaaskayga? Weligeedba kuma arag, kumana taqaano, ma aysan arag meel aad joogtee, bal iga sheekay, sidee ku dhici kartaa inay xaaskayga ogaato wax adiga halkan ku soo geliyey? Marnaba ma ogaan karto xaaskayga waxa adiga halkaani ku keenay oo halkaani ku soo geliyey. Boqoradda ayaa tidhi, ma raba inaan halkaani kaaga sheego, balse xaaskaada ayaa bilow ilaa dhammaad weydiin kartaa. Axmed ayaa yidhi, sidee marka ayaan xaaskayga u weydiin karaa? Halkayna joogtaa hadda? Waxaa igu wardambeysay in aan guriga uga soo dhaqaaqo, aniga ayaana dambiisha soo qaatay, waxaana rabay in aan biyo u dhaamiyo una geeyo. Boqoraddii ayaa tidhi, xaaskaada ma joogto guriga aad uga soo tagtay, balse aniga ayaa hadda kuu geynaya, ee arag. Waxa ayna samaysay inay usheedii ku dhifatay. Hal mar ayuu Axmed booday, waxa uuna u tagay xaaskiisii oo joogta meel ka baxsan dhulka. Gabadha ayaa Axmed soo dhaweeyay, waxa ayna tidhi, soo dhawaaw, kuna soo dhawaaw noloshan cusub. Axmed ayaa yidhi, sidee wax u jiraan? Saakay guriga ayaan kaaga soo tagay, adeerna halkan ayaad joogtaa. Gabadhii ayaa tidhi, waxaad tahay warmow aana wax kala ogeyn. Dahabkii aadka u badnaay oo aad u dhiibatay ninka geerishka agteena ku leh ayaa noo gaday, waxaana ku iibiyey dahabkii dhammaay oo aad ninka u dhiibsatay qasri aad u qurux badan oo leh wax walba oo nolosha u baahan tahay. Waxayna isku soo raaceen qasrigoodii. Axmed oo aad u yaaban ayaa waxay indhahooda qabanayaan cunto nooc walba leh oo hareerihiisa taalla. Axmed ayaa xaaskiisa ku yidhi, waxaan arkay boqornaaduu gabadhiisa oo dhala ku dhex jirta, marka waxaan rabaa in aad wax uun iga sheegtid waxa ku dhacay gabadhaas oo dhalada ku dhex riday. Midaas ayaan u baahanahay inaan ogaado. Gabadha ayaa ku tidhi, waxaasi wax laga soo gudbo ayay ahaayeene, maxaad hadda ku falaysaa? Wuxuu yidhi, aad baan ugu baahanahay, adigu ma ii sheegi kartaa waxa ku dhacay oo dhalada geliyey? Waxay tidhi, hadda i dhegayso, hadda ayaan kaaga warramayaaye sheekada oo dhammaystiran. Markaan dahabkaaga qaaday oo aan soo iibiyey, waxaan aaday qasriga, waana soo gaday, waana qasriga aad hadda joogtid. Intaa kadib waxaa loo baahday inaa adiga lagu keeno qasrigan. Si laguu keenana waxaa lagu soo diray gabadha boqorka ah. Markii la soo diray oo dhex soo marayday, waxaa afduubatay qolo ay isdagaalsanaayeen boqortooyadan, waxayna rabeen in ay dilaan, adiga ayaana ka badbaadiyey oo dhalada ka soo bixiyey. Wuxuu yidhi, haa, hadda ayaan fahmay. Gabadha ayaa ku tidhi, waad fahantay soo maaha? Ma xuma. Waxaan ku weydiiyey, sidee u aragtaa in aan shaqadan qabtay oo sidaan aan yeelay? Wuxuu yidhi, aad baan ugu faraxsanahay, waana kugu raacsanahay inaad arrintaani samayso. Waxaana tahay qof aad u caqli badan, waxaanad ka faa'iidaysatay caqliga Ilaahay ku siiyey. Adiga haddaadan ii joogi lahayn, ma aan heleen wax sidan u weyn. Ayagoo isla sheekaysanaya ayaa waxaa daaqadda ka soo galay boqoraddii, waxa ayna ku tidhi, waan idin salaamay. Ugu horreyn, halkani way ka duwan tahay dhulkii aad taqaaneen. Waa meel aad u weyn, waxayna u baahan tahay in qofkii halkan la keeno marka ugu horreysa la kala baro. Marka anigu waxaan halkan u joogaa inaan wax walba idiin sheego. Waxba ha ka cabsanina, aniga ayaa ah qofka in caawi doona ilaa halkan aad kala qabsan doontaan. Maadaama ay halkaani ka korayso dhulka, waxaan idin sameeyey inaan anigu mar walba idin caawiyo. Waxayna ku dhifatay ushooda, waxa ayna geysay qasrigooda bannaankiisa ama daaradda qasriga, waxayna u sharaxday wax walba. Waxayna tiri, halkan idin muuqataa waa beer, waxaad ka heli kartiin cunto walba. Halkaanina waa ceelkii oo waxaad ka dhaansan kartaan biyo walba aad u baahan tihiin. Axmed iyo xaaskiisa ayaa aad iyo aad ugu farxay waxa ay heleen iyo waxa ay horay u ahaayeen.